1930 gudaha Mareykanka waxa ka jira nin lagu magacaabi jiray Charles Arthur. Ninkan waxa uu ahaa tuug gaar ahaan kuwa bangiyada dhaca. Arrinta cajiibka waxa waaye ninkan tuuga dadka Mareykanka gaar ahaan beeraleyda iyo dadka dhaqaale ahaan tabarta yar aad ay u jeclaayeen. waliba marka ay maqlaan Charles ayaa maanta bangi dhacay qaarkood baa farxad la soo xijiray. waxay ku naanaysi jireen magaca Pretty Boy, wiilkii shidnaa ama wiilkii wanaagsanaa. xilligaas oo ay adduunka ka jirtay dhaqaale xumo tii ugu darneed abid ee adduunka soo martaa waa Great Depression-kii. ninkan wax kale ma sameyn jirin ee marka uu bangi u dhaco waliba uu ka qaato waxa uu ka qaadan karo waxa uu gubi jiray dhammaan waraaqaha iyo documentska bangiga yaala ee ay ku qoran yihiin deymaha bangiga ka maqan. waxa uu beegsan jiray bangiyada ay deymaha ka qaataan dadka beeraleyda ah si uu ugu dhiirigeliyo si tacbashada beeraha ayaga oo aan ka walwalsanayn culayska haystay ee ku aadanaa inaysan awoodin dib u bixinta deymaha iyo dulsaarka iyaga ku maqan dhaqaale xumo jirtay awgeed. waa talaabo uu ku doonayay inuu culayska uga feedo dadka ay deymaha cusleeyeen. adeego xilligaas ma jirin sistemyada kombiyuutaraasidka ay lagu kaydiyo xogta dadka ay adeegsadaan hadda bangiyada. FBI-da Mareykanka oo barigaas la oran jiray magac kale ayaa madaxa Charles dul dhigtay lacag aad u badan si ay gacanta ugu soo dhigto oo sharciga loo horgeeyo maadaama uu yahay tuug iyo eedaysane sharci ahaan. waxaa jirtay mar lagu xukumay 15 sano balse uu ka baxsaday isaga oo ku dhumaalaysan jiray meelo kala duwan. ugu dambeyn FBI-da ayaa ku guuleysatay inay toogato isaga oo ka baxsanaya sharciga. aaskiisii waxaa la sheegay inay ka qayb galeen 20,000 oo qof, taas oo ku tusinaysa sida ay ugu weyneed qulubta dad badan oo uu arkayay inuu haliyey yahay. ilaa waqtigan sheekooyinkiisa waxay ku keedsan yihiin mareegaha wax laga akhristo internetka.